waxaa la dheelayaa berrito kulanka finaalka ee kama dambaysta Champions League kaasi oo ku kulmi doonaan kooxaha Real Madrid iyo Borussia Dortmund laguna qaban doono garoonka Wembley ee magaalada London ee carigaasi Ingiriiska. Real Madrid waxay u hanqal taagaysaa oo ordaysaa in ay hanato koobkeedii 15aad waxaana u xareysan ilaa 14 koob oo Champions League ah, waana kooxda ugu badan ee haysato koobka horyaalka Champions League, halka Borussia Dortmund ay u ordayso amaba ay ku fikirayso in markeedii labaad taariikhda mar uun ay hanato koobkeedii labaad. Koobkeedii ugu horreeyay waxay ay hanatay 1997 oo ka qaaday kooxda Juventus, laakiin garoonka lagu dheeli doono ee Wembley Stadium ayaa leh taariikh gaar ah oo aan farxad gelinaynin kooxda Borussia Dortmund. Sanadii 2013 ayay khasaare xanuun badan kula kulantay isla garoonkan ay ku dheeli doonto berrito kooxda Borussia Dortmund 2013 waxaana finaalkii halkaasi ay kula dheshay kooxda Bayern Munich. Koobkii la hantay oo la tagay kooxda Bayern Munich. Bal haddaba aan isla fiirino kooxda Real Madrid iyo kooxda ka soo horjeeda ee finaalka la dheeli doonta inta mar ay finaal imaadeen, inta mar ay khasaareen iyo inta mar ay koobka hanteen koox kastaba. Kooxda Real Madrid waxa ay finaal timid 18 mar waxayna khasaartay 3 mar oo kala ah sanadihii 1962 iyo 1964 iyo sidoo kale 1981. Halka kooxda Borussia Dortmund ay timid finaal 3 mar waxa ay qaadatay koobkii oo waa 1997 Juventus ayay dhiiga u dartay oo koobkii ayay qaadatay, halka markii xigtay ay timaado ay ahayd sanadii 2013 waxay la kulantay khasaare xanuun badan oo kooxda deriska ay yihiin ee Bayern Munich ayaa koobkii qaadatay. Marka saddexaadna waa markaan oo ay la dheelayso kooxda Real Madrid. Haddaba garoonka weyn ee Wembley Stadium oo martigelinaya koobkani bal aan isla fiirino taariikhdiisa kooban, inta taageero uu qaado iyo inta mar oo finaal European Champions League ah martigeliyay. Garoonkani waxa uu qaadi karaa ilaa 90,000 oo taageero ah, wuxuuna martigeliyay Champions League ilaa 8 mar, waana garoonka ugu badan ee ku yaala Yurub ee martigeliyay finaal Champions League. Garoonka Wembley Stadium finaalkiisii ugu horreeyay waxaa lagu qabtay xilli ciyaareedkii 1962 ilaa 1963 waxaana finaalkaasi Champions League ee garoonkaas lagu qabtay ku guuleystay AC Milan oo kooxda Benfica ee Portugal uga qaaday 2-1. waxaana finaalkaasi soo xaadiray taageerayaal kor u dhaafaya 46,000 oo taageere. Waxaa kaloo sanadkii xigay lagu qabtay finaal Champions League Wembley Stadium uu ahaa sanad ciyaareedkii 1967 ilaa 1968 waxaana soo xaadiray taageerayaal kor u dhaafaya 92,000 waxaana ku guuleystay finaalkaasi Manchester United oo Benfica oo Portugal ka soo jeeda ku garaacday natiijo ahayd 4-1. 3 sano kadib mar kale ayuu garoonkaasi martigeliyay finaal Champions League waxaana qaaday kooxda Ajax Amsterdam ee reer Holland oo ka badisay kooxda Panathinaikos ee Giriigga laga leeyahay natiijo ahayd 2-0 waxaana soo xaadiray taageerayaal kor u dhaafaya 83,000. Liverpool ayaa sanad ciyaareedkii 1997 ilaa 1998 ku qaaday Champions League isla garoonkaasi, iyadoona kaga adkaatay oo koobka ka farmaroojisay koox laga lahaa Belgium oo lagu magacaabo Club Brugge. Ciyaartaas oo ku soo dhamaatay 1-1 oo ay guusha ku raacday kooxda Liverpool
waxaana sidoo kale soo xaadiray taageerayaal kor u dhaafaya 92,000 oo taageere ah. 1991 ilaa 1992 sanad ciyaareedkii ahaa waxaa lagu qabtay mar kaleeto Final Champions League waxaana hantay oo koobkaasi la tagay kooxda reer Spain ee Barcelona, waxayna ka adkaatay kooxda Sampdoria oo ay ku garaacday 1-0, waxaana kasoo xaadiray oo kasoo qaybgalay ciyaartaasi finaalka ahayd taageerayaal kor u dhaafaya 71,000. 19 sano kadib, isla Barcelona ayaa ku dheeshay garoonkaasi oo lagu qabtay Final Champions League, waxayna la dheelaysay oo finaalkaasi ay wada ciyaareen kooxda Manchester United, waxayna guushii raacday kooxda Barcelona oo 3-1 dhegta dhiiga ugu dartay kooxda Manchester United, waxaana ciyaartaasi kasoo qaybgalay taageerayaal kor u dhaafaya 88,000 oo taageerayaal ah. Finaalkii ugu dambeeyay ee lagu qabtay garoonkaasina wuxuu ahaa finaalkii dhexmaray Champions League wuxuu ahaa finaalkii ay wada ciyaareen kooxaha reer Jarmal ee Bayern Munich iyo Borussia Dortmund 2013, taasi oo ay guusha raacday kooxda Bayern Munich, waxaana kasoo qaybgalay taageerayaal kor u dhaafaya 86,000. Finaalkiisii ugu dambeeyayna wuxuu martigelinayaa sanadkani 2024, loona joogay mid ka hanta koobkani dhagaha weyn ee Real Madrid ama Borussia Dortmund.